مدن قدومي وحاجرة إن دولة النرويج أي صار تشرعي دوان أي دقن جلسي كاسوء إن قارك من الصومالي ده أي سوق قاتن باسبور كصومالي جريدة الصومالية إن مجال الدرجة كل دقن ضد بدن أو كمد أو سوجر عبور يحوين يدد ويلا أي أوبا إن باسبور كصومالي أي دونتان ضد كاس أيقون نقالة فربضن أوبا حيو إن سفارده أي تجان أي حدنا وحقت كاتي إني مدة كوبن كهلان باسبوركي إن دقاليه وكلوسي هاي سفر كمية فوقي وآديان حدنا باسبوركي سفر تكون مسوق جرايو مدة الله قبتنا ومدة أكوبن دولة الصومالية جارهن وزارة أرمها الدبدة أما السفارة الصومالية ما كلا حريتها أرنتاس إن قاب كفروا إذا كاس يكون الكلام باسبورك الصومالي أيضا عمرين سفر غير أما وقت أدو فربنا أوصل به وما سنت عرض سؤال مهم dad badanna way ku taagneed annagana way nagu taagneed mana aha kaliya dadka kaliya oo u baahdee waxa jiro marna jaanis waxa jiro qofka Soomaaliga oo degan Norway la soo saaray sharci u ogolaanaya inuu qaato laba dhalasho Soomaali iyo Norweji oo isla sidii karo oo marka hore mamnuuc ahayd waxa kale jiro dadkan oo hadda sheegay sidoo u baahdo baahidaas jirto oo arrinkaas baahidaas oo keentay in wasaaradda arrimaha dibadda aan la hadalno oo dadka hadeertaan haddii number aan ku sheego waxa lagu fahmo waxa uu fudud number lacag qofka inta ka baxa oo Belgium aadan dalka Norway ka tagay magaalada aad deganahay waxa ku baxdo 15 lacag u dhiganto $2,000 ayaa ku baxday safarkiisaas macal baasaboorka marka arrinkaas xanuunka leedahay iyo dadka qaar waalidiintii 7 caruur ama 5 caruur ama u wada baahnaa qof kasta Soomaali ayaa u baahan baasaboorka kaliya baahidaas ma Soomaalida degan Norway waxa waaye 41 baahidoodana way wada qabaan maanta hubaal way taas mid la isweydiinayo ma mid hor baasaboor weyn u haystay mid baasaboor yar u haystay baahidaas ayadoo jirto wasiirka waa kala hadalnay anagoo una qeexnay 6,600 ku dhawaad oo qofood ay jirto maanta u dhibaataysan oo shaqooyinka iskooladii muddo loo qabto la yiri waa inaa la keentiin oo sharci la'aan ah maxay sharcigooda arrintaas in ka socdo culeyskeedii naga yaraaday dawladana ay fursad samaysay oo ah in qofkii hadduu doonanayo oo dawladda la xiriiro marka arrinkaas dhibkaas jiro oo baahida jirto oo loo baahan yahay baasaboorka wasaaradda arrimaha dibadda waan kala hadalnay wasaaradda inkasta noogu bishaareysay inay imaan doonto safaarad in laga furi doono Norway qunsuliyad in laanta socdaalka xafiis ay ka furo doono laakiin intaba waxaan ogeysiinay wasiirka inaysan nafinagu simin oo baahi ka weyn oo degdeg ah ay jirto arrinkaasna wuxuu naga ballan qaaday in haddii aan u gudbino maxay liiska dadka inuu arrinkaas wax ka qaban doono oo asiga toos ah la soo xiriirno wasaaradda arrimaha dibadda oo inta ka horreysay ay noo soo diri doonaan daaqam ka shaqeeya arrinkaas Norway uu soo diray arrinkaas wuu noo ballan qaaday dhiiranaantaas iyo go'aankaas oo qaatay wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya ay qaadatana waan ugu hambalyeynaa waxaana jeclaa lahayn in maxay sida dadka noola soo xiriirayaanna in loo soo fuudeeyo arrinkaas ma noqon karto arrin dad lala sugo maxaa yeelay sugitaanka iyo dadka dhibka haysta aawada gobolada dhan Norway way badan yihiin waana 500 ayaa la hubaa oo markaas u baahnay in 41 kunna way u baahan qof kasta Soomaali ayaa u baahan maanta wuu ku farxayaa inuu haysto baasaboorkiisa marka baahidaas jirta aawada 46 kun oo xataa la daneynayaan oo ciyaalka iyo waalidiinta ay xiisa qabaan inay baasaboorkooda helaan maadaama ay ogayeen dadka soo qaxaan baasaboorka qiimaha oo leeyahay oo socodka iyo wax kasta jiritaanka qofka ay leeyahay xataa bangiyada u furaa dadka oo bangiga marka haysataa daadan gaarin baasaboorka weynaayo dalkan hadda baasaboorka Soomaaliga haysto bangiyada meelaha qaar waa lagu ogolyahay in heer qaadid laakiin haddii maxay meelaha hoos ku kaanaysa ama adeegyada ayaa ka yaraanaya kuwa kale baahidaas jirta awdeed waxa ka codsanaya mar labaad sida nooga ballan qaadeen wasaaradda arrimaha dibadda oo wasiirkooda nooga ballan qaaday in naloo soo fuday arrinkaas wixii Norway baahidaas qabana in inta loogu keeni doono dad sameeyo arrinkaas waa kala hadalnay sidaas ayuu isku dhoweeyay